waafajiyo ayaan ilaahay weydiisanayaa subxaanah. amaa kelimada aad ii weydiisateen qoyska nooga hadal ayaad dhahdeen. qoysku waa ballaadhan yahay, mar waa dhismo, marra waa khata iyo khalad jira sixitaankii, marra waa xuquuq, marra waa waxyaabaha reeraha dhaawaca. waxaan doortay abwaabta aadka u fara badan een sheegay khayr wax kaama taro, laakiin bal inaan taabto waxyaabaha reeraha burburiya si aan iskaga ilaalinno. waan jeclaan lahaa qodobada aan tilmaami doono inaad ka wada niqaashtaan oo aad ka wada hadashaan oo aad waqti gooni ah ama muxaadarada kadib ama maalin kaleba aad ka wada niqaashtaan. waan jeclaan lahaa aniguna aan hadda ru'uusul aqlaam inaan idin siiyo. waan boobsiinayaa qodobo badan baa ii qoran sharaxa kuma dheeraan doono, laakiin waxaan isku dayey inaan ishaare kadib hal ujeeddaan leenahaye ogaada. ujeeddadaa mar walba waan celceliyaa, anigana kama daalo. ujeeddada aan leenahay inay wax noo hagaagaan weeye. ujeeddada aanu leenahay caawa kelimada aad maqasho ee reerkaaga burburinaysa inaad ka fogaato weeye. midda labaad, hadalku wuxuu u socdaa ragga iyo dumarkaba. dumarkana gooni oo lama hadlayo, raggana gooni oo lama hadlayo, laakiin arrintani waa heshiiskii iyo ayuutadii iyo shirkaddii ay wada galeen ee alla yidhi wa akhadnaa minkum miithaaqan ghaliida. ballankii adkaa ay wada galeen wixii dhaawacayay. ballankii waa jiraa, laakiin wixii dhaawacayay, waxyaabaha dhaawaca kow waxaa ka mida laga yaabo dad badan inay ka soo gudbeen oo reero leh doorashada hore oo marka hore aan la isku dooranin diin oo aan la isku dooranin akhlaaq. taasi waxay dhumisaa nolosha degganaanteeda iyo islahaanshaha labada qof oo meesha ka baxda ayay keentaa. saa daraaddeed kafaa'adu ama isu dhiganku waa inay diin iyo akhlaaq waa inay noqotaa. labadubana waa laga doonayaa. waa qodob muhiima qodobka ogaada. qodobka labaad oo haddii la keeni waayo reeraha dhaawici kara waa aljahlu bixuquuqi tarafi alaakhar. labadii qof oo midba midka kale xuquuqdiisa jahli kaga jira ama labadoodaba ay jahli kaga jiraan ama mid ka mida uu jahli kaga jiro. labadan qof heshiis bay galeen. heshiiskii waxaa loo baahan yahay in la wada aqriyo si aan u saxiixo, oon u tawqiiciyo, si aan u waafaqo, si uu heshiisku u ansaxo. waxay muhiim ah in qof walba heshiiska uu aqriyo. waa qodob muhiima weeye. markii ay gabadhu garan weyda xaqeeda, ninku garan waaye xaqiisa, labadooda xuquuqda ay jahli kaga jiraan diin ahaan, shaki waxaan ku jirin reerkaa khalad baa ayaa ku imaanaya. waana waxyaabaha ugu waaweyn oo reeraha dumiya waa aljahlu bixuquuqi tarafi alaakhar. waa inuu qofka kale xaqi uu ku lahaa oo horta jahli kaga jiro. imaa jahli inuu kaga jiro aw yatajaahal, ama wuu og yahaye wuu iska dhagatirayaa oo wuu iska indhatirayaa oo wuu ismootinayaa oo wuu ismoogamoogaysiinayaa oo wuu isgara marinayaa. ma doonayo xaqiiqada iyo xaqa. qodobkaasna waa qodob muhiim ah, haddee tafaasiil fara badan buu leeyahay. qodobka saddexaad oo reeraha burburka ku keena labadaa qodob kadib waa tabaayunu shakhsiyaad. labadii qof oo sidoodaba dabeecad ahaan kala fog, qaabka ay ku soo kala koreen oo kala duwan. wabittaali
ayaga oon marna ka wada hadlin maadaama oo aanu bii'o kala duwan iyo reero kala duwan aan ku soo barbaarnay aan isbaranno oo aanu wada fadhiisanno oo dabeecaadkaaga kuwa wanaagsan ii sheeg dabeecaadkaaga kuwa xunna ii sheeg waxaad jeceshahay ii sharax waxaad neceb tahay warqad iigu qor waxaad dhibsanayso ii balballaadhi oo ii faahfaahi ayadoon marna laga wada hadlin ayaa laba qof oo laga yaabo mid inuu ku soo koray gaajo iyo rafaad mid ku soo koray colaad iyo xabad mid ku soo koray barwaaqo iyo bashbash mid ku soo koray caafimaad mid ku soo koray cudur mid ku soo weynaaday hooyo iyo aabbo la kala hayo mid ku soo koray hooyo iyo aabbo beer janna isu ah labadii qof marka la isu keeno mid walba tasawur iyo aragti iyo faham ayaa qalbigiisa iyo maskaxdiisa ku rajis garaysan oo ku jira ii sheega labadan qof haddayna wada fadhiisanin oo aynan isfahmin oo waxaan ayna meel wada dhigin siday isku afgaran karaan idan qodobka saddexaadna waa qodobada ugu waaweyn oo reeraheenna xaqiiqatan dumiya marka laga reebo jahliga xuquuqda qof walba midka kale xaqa uu ku leeyahay markii laga soo tago oon la garanaynin waa tabaayunu shakhsiyaad yacni namatu xayaatihim sida ay ku soo noolaayeen baa kala duwan mana doonayaan thaqaafo iyo caqli iyo garasho iyo mas'alo waaqici ah intay u fikiraan ma dhahayaan horta isma naqaane bal kow soo fadhiiso qodobkaana waa qodob khatar ah waxaan idinka codsanayaa banaatu tayibaad ilaahay tayibaad ha idinka dhige inaad qalimo iyo buugaag intaad soo qaadataan inay gabarh walba meesha u daran inay dhahdo aleelahay aniga asbuucan qodobkan baan tijaabinayaa asbuucan ama bishan qodobkan baan tijaabinayaa aniga qodobkan buu dhib iga haystaa qodobada aan sheegayno kulli dadka ma wada haystaan anigan bay i haystaan qaybo ka mida reerkaygay haystaan qaybo ka mida waa insaan baan nahay oo bashar baan nahay oo malaa'ig ma nihin laakiin waxaanu u baahannahay qof walba qalin iyo warqad hadda soo qaado rajaa'an kadibna qodobada aan sheegi doonno waxaad adigu dhahda ahey aniga kan waan ku fiicnahay iyo xagga dhig alla aniga kanaa iga maqan alla waa midkan reerkayga duminaya war ileen xanuunku war ileen khilaafku war ileen buuqu war ileen jiradan war ileen awlaadda iga sii carraysa iyo raaxa la'aanta iyo deganaan la'aanta iyo sakiina la'aanta xasilooni la'aanta ileen waaba qodobkan baa iga maqnaa alxikmatu daallatu lmu'min mu'minka xikmadda meeshuu ka helaba waa qaataa qodobka saddexaad hoosta ka xariiqda qodobka afraad oo reeraheenna burburka ku keena oo in laga gudba u baahan waa almashaakil almaadiya waa mas'alada dhaqaalaha dhinacee imaa bukhli oo reero badan baa waxay u burburayaan gacan adayga ragga waa kow ya imaa tactiilu lcamali ama bukhliga gabadhana wuu galaa laakiin ragga u badane midka labaad qaybta labaadna ninkiiba shaqo ooma dareerayo haddee ninkii hadduusan shaqaynaynin allana uu yidhi alrijaalu qawaamuuna cala annisaa qawaamadu say u imaan kartaa see la isu qadarin karaa see la isu ixtiraami karaa odaygu ha ka baxo guriga oo ha soo shaqeeyo ragga waxaan u sheegayaa ragga waxaan rabaa inay dhaga caafimaad qaba wax ku maqlaan qalbi wax weelayn karana ay ku weelaystaan mahma aad reerkaaga u shaqayso sharaf baad leedahay mahma aad guriga ka baxdo oo aad reerka dakhli soo geliso ilmahaa ku maqlaya hooyadaa ku maqlaysa dadkaa kuu ducaynaya dhexdooda dadka dhexdooda sharaf baad ka yeelanaysaa khilaafaadka reeraha yaraanaya li'anna nin waajibkiisii u qumaya ayaad
mashaakilka maadiga ah dad buu ka haystaa bukhli iyo bakhaylnimo reerahood u burburay dad bay maadadu ay ka burburisay dhinaca shaqo la'aanta midda saddexaad israaf المشاكل المادية إسراف حد قذب دهب كصوبحة إيا داها صوبحة إيا فدي عربيتك صوبحة إيا تيفيقة هذا صوبحة إيا تليفونك صوبحة هدي ما انتنا لغو مشغولو ريركي حوليسي ويدادادانيان إذن صدح ذا قضبة مشاكلات با wuxuu ka haystaa reeraha hadaba aanu talan idin wada ku saabsan mas'alada maadada iyo dhaqaalaha dadka ay dib ku hayso labada isqaba intaydan burburin taladan qaata talada maxay tahay qalin iyo buug ba soo qaadanaysaan dhaqaalaha idin soo gala baad qoraysaan inta idin ka baxda baad qoraysaan oo maxaa la yiraahdaa wixii ijaar iyo wax la midka ah waxaad qoraysaan wixii sadaqa loo baahan yahay qoraysaan waxaad qoraysaan wixii mustaqbal caruura baad qoraysaan waa dhamaat noloshu saasay ku socon maxaa la iskaga hor imaanaya marka koobaad haday labadii qof ay dhahaan war lacagta baana soo gash alxamdulillah guriga ijaarkiisu waa meeqa korontadu waa meeqa telefoonadu waa meeqa biilku waa meeqa masaajidada iyo meelahan ka nahay xubnaha ka nahay waa meeqa yaa baahidu daran tahay baahidiisu ma reerkaaga ma reerkayga yay daran tahay inta ka loo diro kaana inta loo diro war maxaa noo soo haray 2,000 baa noo soo hadhay oo karoon lacagta waddankaanaga ama $1 ama $500 halkaas aan gashanno waa wax la garanayo oo reerka uu ku socon karo laakiin haday gabadhi dhahdo ana dhaqaalahayga haysan ama ninku yiraahdo ana ahayn oo wax walbaan sameynaya haday reerku waa burburaya wax la isku waafaqsan yahay oo labadan qof ka dhaxeeya oo heshiis ah hal gaaro la iskama hor imaanaya marka qodobkaasna waa qodob runtii sharax dheer buu baahan yahay qodob walba asaga muhaadara waa canaawiin waxaan aqrinaya waa canaawiin mid walba muhaadara gooni oo saacado socon iyo koorsooyin u baahan qodobka shanaad waa kasratul a'baa waa shaqada badan oo aan la isku caawinaynin shaqada badan ee guriga taala oo aan la isku gacan siinaynin oo laba qof oo shimbirta labadeeda garab isu noqonaya ma aha labadii qof mid baa maqan garab baa maqan waliba ragga maqan cadliga marka laga hadlo oo cadaaladda laga hadlo oo ilaahay laga xishoodo laga boqo inta badan 90% wasiyaada caawinaadi ragga maqan haweenkii waa diyaar caruurtooday rabaan inay dhaqdaan laakiin away garab baa maqan qof berberay oo garab la'aana hadaba ma socon kara waa maya saadaradeed guriga shaqada taala ayadana waa in la qoraa sidii dhaqaalihii loo qoray odayga iyo islaamtu intay wada fadhiistaan hadhaheen haye bal 24 saac shaqada noo taala bal aanu xisaabino maxaa yaala xagga caruurta iyo geyntooda iyo soo qaadidooda xagga shaqada iyo biilka reerka xagga adeega iyo wixii la cuni lahaa maxaa kale wax alla wixii shaqada guriga laga qaban lahaa haday noqoto guriga nadaafadiisa iyo sidii guriga loogu noolaan lahaa arintaasi waa daruuri shaqadan badan haday hal qof ku dhacdo reerka waa dumaya arinta hal la ogaado kasratul a'baa inta hadana waxa dheer oo isla qodobkayga shanaada oo culayska inuu hal qof ku dhaco ay u badan tahay
halkaa qofna uusan awoodi karin wuxuu dhibku ku sii badanayaa si fiican u dhagaysta marka aan loo garaabin marka aan lagu gacan siinin marka aan loo cudur daaranin marka aan loo ducaynin markaasuu culays labaad noqonayaa tusaalaha waxbaa lagu fahmaa waxaanu nidhi dumarkii buu culaysku ku dhacaa ninka caqliga badan calal aqal gabdhuhu maadaama ay masaakiin wallaahi ay yihiin wuu sasaban karaa calal aqal oo markuu soo galo hadduu dhaho alla ma iga daashay alla xabiibtii ma iga daashay alla dhafoorkaagu maanta ilama fiicno waan ka xumahay aad ii cafi aakharo ha i qabsanin anigana intaasaa wax kuugu maqnaa haddana ii fadhiiso haddana ii naso oo intuu musqusha geeyo oo si fiican ugu soo qabeeyo oo uu kareem u mariyo oo markaas sariirta intuu geeyo inuu markaasi masaaj u mariyo oo daalka ka bixiyo oo intuu la fadhiisto uu maanta sheeko uu ka dhargiyo oo uu ku ammaano oo uu yidhaahdo cuntadan maanaad ii diyaarisay oo guriga nadaafadda maanaad ii samaysay oo carruurtan qurquruxda badane ma anaa dhalay oo sariirtan carafta badan iyo go'anna guriga ma noo yaallay barfuunkan aad marsatay talow weli ma arkine ma samaduu ka yimid oo ma malaa'ig baa kuu keentay waxaan ragow idiin hubaa xataa gabadhu hadduu culayska intaa dhan u haystay ood intaa ku dhahdo wallaahi daalku waa ka baaba'ayaa xaqiiqo dhaba wey laakiin goormo ayuu daalku daal noqonayaa oo uu qofka daashanayaa oo uu reerka duminayaa oo daaqadda laga wada duulayaa waa goorma waa marka xataa la isu garaabi waayo odaygii duurka intuu galo mid fadhi ku dirir ku mashquulsan iyo mid intuu yidhi dacwaan wadayaa waa wax fiicane goortii masaajidka waajibaadkii laga soo tegey la soo dhammaystay masjidkii iska sii dhex fadhiya maxaad ka qabani imow carruurtaada wax ka seexi oo carruurtaada wax ka cashaysii oo carruurtaadu markay seexanayaan qur'aan ku aqri ama buug yar u aqri ama la ciyaar ka farax geli intay xaasku soo qaqabaysanayso oo isku kaa qurxinayso adigu maxaa kuu diiday ilmahaaga in aad si fiican u habaysato waa wax la yaab leh oo aad iyo aad u cajaa'ib badan marka shaqada gurigoo hal qof ku dhacda murtida iga qabsada guryaha waxaa dumiya shaqada guriga iyo reerka u taalla oo culayskeedu uu hal qof qaado kii kalena uusan u garaabin kuna ammaanin una ogeyn xataa qodobkaas waxaan u malayn inaad hoosta aad uga xariiqi doontaan oo aad dhihi doontaan qodobkaa anigu i haystaa alla anigu i haystaa alla qodobkaa daawadiisa marka in la raadiyo weeye qodobka 7 oon islixaad baan u jeedaa cafar raalli ahaada qodobka 6 oo aan isleehay reeraha dhaawac buu ku keenaa oo wuu burburiyaa waa tadakhulu alaqaaribi waalasdiqaa waa faragelinta qoyska gabadha ama qoyska wiilka ama saaxiibada gabadha ama saaxiibada wiilka oo reer dhisan farageliya way badan tahay arrintaa ogaada arrintaa waa arrin cajaa'iba weeye faragelinta qaraabadu reero badan baa ku dumay qaraabada waxaan leenahay waad mahadsan tihiin wiil iyo gabadh inaa isu dhisteene wax dhisa laakiin waxa duminina malaa'ig ma ahee ogaada way isqaban hayaane si wanaagsan u maamula way isdagaalayaane heshiisiiya way kala tegayaane isku soo celiya u duceeya ha habaarina ha kala caydhinina ee reerka dhisa saaxiibadana wax badan reera badan baa saaxiibka xun ku duma wiilkii oo iska raaca dhalinyaro kubad baan la soo ciyaari xaggaan aadi gabadhi oo mataqaana ayadana aroos baan xaggaan aadi kadibna reerku saaxiibkaa xun ayaa intuu dayaco marka hore raacitaankiisa ayaa talooyin qalloocan
talooyin kharriban oo aan khibrad ku dhisnayn oon aqoon ku dhisnayn ayaa gabadhi la siin ama wiilkii la siinaya na saasaa la yeelaa ragga na wiilka saasaa la yeelaa wiilkina waxaa lagu dhihi war saasaa la yeela warkeeda ha maqlin guriga maxaad u fadhidaa oo miyay ku sixirtay oo miyay ku jaanjaantay maxaad guriga unoogu dhex wareegaysanaysaa war nin baa taaya bax ninkii la arko asagoo gabadhiisa gacanta haysta ilmaha la haya la ciyaaraya la dabaalanaya meelaha fiican geynaya la soo adeegaya la qoslaya waxaa leeyahay kii islaantii baa guri ku xirxiratay way jaanjaamatay talow miyay sixratay markii dhowr jeer saa loogu dhaga hadlo marka dambe asagii baa afkiis ka soo bixi anigu waan baxaya waxa xaggeed u socotaa haddee nimanka ila egba ma taqaanaa ii keen way bannaankay joogaan masaladaasi waa saaxiibada khatarta ay reeraha ku yihiin qodobka 7 cadamu annadari ila almaxaasini waaliijaabiyaat ayadoon la fiirinin qofkan muxuu positive leh oo wanaagiisa iyo xumaantiisa wanaagiisa iyo dhacdhaciisa wanaagiisa iyo gaabintiisa wanaagiisa iyo khaladkiisa wanaagiisa iyo gefkiisa oo aan laysu miisaamin bimacnaa qof hal il wax ku eegaya oo qofkii noqdo oo waa maxay wuxuu eegayo wax alla wixii xun unba asaga muhiim u ah oo wanaagba lama tusayo wanaagba ma arkayaba ninkii waxaa laga yaabaa gabadha inuusan wanaageeda arkayn gabadha waxaa laga yaabaa ninkeedu inuusan wanaagga u leeyahay inayna arkayn marka maxaa la xoojinayaa waxaa la xoojinayaa insaanka iyo daciifnimadiisa iyo dhacdhaciisa taasaa laga ugaarhsanayaa waa la isku darayaa waa la isku biirinayaa kadib bay maxaa la yidhahdaa waxay ka dhigayaan qumbulo dhan oo hal mar qaraxda kanaad yeeshay oo kanaa samaysay oo kanaa samaysay oo maxaa garab socday oo wanaag ahaa innaba lama eegayo waxaan u malayn qodobkaa laftiisu waa qodob in badan reeraheenna dhaawaca bal asagana hoostaa laga xariiqo qodobka 8 alkhayratu shadiida masayrka xadgudubka badan masayrka xadgudubka xumbaarsan maxaan ka wadaa masayrka xadgudubka xumbaarsan masayrku waa anwaac masayr wanaagsan oo xumaanta laga masayro macsida laga masayro qofka aad u masayrto wanaagiisa iyo khayrkiisa waa masayrka wanaagsan laakiin masayr xun baa jira oo reeraha naga dumiya masayrka raggana waa galaa dumarkana waa galaa dumarkana qaab buu u galaa raggana sibuu u galaa mid walbana waa madmuum weeye hadduusan ahayn kii shareecadu ay xadiday muxuu keenaa marka ilaa fuqdaani fiq inay labada qof isku kalsoonaan waayaan thumma intaa kadib shaytaanka albaabadiisii baa marka furmaya alghayra shadiida masayrka caqiimka ah ee mandhalayska ah ee aan wax dhalaynin een muthmirka ahayn ee wax burinaya wax baabi'inaya ee wax duminaya asagana wuxuu ka mid yahay raggana waa galaa saa sheegay dumarkana waa galaa qodobka 9 عدم الالتزام بما قرر الشرع في علاج المشكلات الزوجية هذه لا إسخلافه أو أن لا مرن وضذي شرع يلي وحلو حليه هذه لا إسخلافه وبشر وابن آدم متشر قري حتى قري نبي محمد صلى الله عليه وسلم إيو حاسسك نبي محمد عليه الصلاة والسلام متشر قري الدنيا سارا وأن خلاف صامر لكن هركي خلاف أوضعه أولو علي القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا اسمان دافتان اللي إيا الرسول عليا وذا فريستا أو وذا هدلا قعمق الشرهوس بالوردقا شرعي عليا والأرنتان أنه ندحت الله بل أن قرآنك إيا السنة ذا أبندقنو ما نقانا وجهلي هورين سو شيغني ما نقانا سو maaha aan u bandhigano culumada
إيا عدة علمي قال أقونت الإلهي هبدا أسي كدبنا أن كقعنا وقرآن يواصلنه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار أمر منهد خيار منهد مر هدي الله رسول كيسة أي أمر كسيا لكن مركا ليس خلافه أو قفل بهوديسة سمو أجدين هل أرن أو اللياب لا يدين شيء أو الأمة لإنا ذي وافق دونتان هذا خلافتان نبض نقوم هيسو أو وامحي ما أنت قفك لبضا قف إسخفت مركا إسخلافان قفل بقى السجا إسلاس حنكو محكمة وحقاضي سنة وأسجا اللبو محكمة حكم كريدي سنة وأسجا وصدح انت وأسجا اسكو قنعن إلا جا خلديه مركو اسكو قنعينا توقيع يصيح بصارية لكن هدو قفل بديه لها تلو أربي آخر وحكو الصور راعان هدو قفل بديه لها أو أديه لها ولا لو أنا كاخلدا أو تنازل سمين لها أو معناها الصبر كقران لها أو صبر كأجر كقران لها قران لها أو وناقا بدن اللي سوسو قلي ولا تنسوا الفضل بينكم أو قران لها ما أنت حالات دينو سيدان أي تاي ويكدو ونان لهي مركا وإن شرعي اللو عليو هدي الاسخلافة وإن شرعي إيا الدستور كإلهي وإن لو علياه سيدا درادة مركا الاسخلافة محادعة وحادعة مركيبة وحاكسو دقدقة يقفك أما ويلك أما قبض أما ننك مركي مشكلة بعضه مركيبة مسكحة معاكسو دعمت غانان سوء ظن ها ملح قفك إنه ملح أماليه ثم وحكا لو مسكحة ننك كسو دعم مجرو وان هين إفر قبض معاكسو دعا إفر وان كفر يا دعفن قبض معاكسو دعا إفر هوري محاضرة نقول دي ليلة هذا إفر وإفهم ننكنا وافري سؤال بان ربا إنا نفتا إذا إيا ولا الله ويديه خلافة دودعو محاي قبلوه قلناهان إفر واي إنا أبيادان ربا سو مجرو أذيقون فريتان دلبانين إن وحلا حالين كرو إلا فريسان كرو إلا نقاش كرو إلا اسقنعين كرو إلا يسو تنازلي كرو ما جرتو قبلوه هاتشوشيين إفرتن بدن رجع قار بدن والجهلاء أو وحبة جرنينين أيا قبل إفر مركز هذا هو كفريا حقو قال أنا جا واحد بدن وكمية هل تشوشيو مسألة الإفر وقادنا عاوة قبل أن أجين هدي جو قبل أن نين كذا إفر هذا سبب الآن شرعي أو غير كد بكرو ثمدوي ويدن بابسة إذنكم بيلا عبيات كدقتين إفر بيلا عبيا ماها ومسألة ديني حكم باكو تعلقة إفر وحالة أرقوها وآخر الدواء الكي داو وحاوضن بي الضبل سكولة شيو وإفر نيكا مركز هذا معناها أنك لا تقنوي أنك لا بحنوي كلا بح كتابك قبا نكلا كعوي وإنت واحد ما يشكو جرا محا فايدة مركز جوجية فريتانك بدأ البريسان حلقة الرادية نمان كانوا وحان ليه قلقد آد قبلها كوهان داديسان وان كفري هذا ساوي يلي ويدو وان كفري جوج نين رقعة هداتا هاي كجوجي قبلنا مسلمات دا ولا شابا ما أضا شعلاتين إن هندادات دا لغو سمعي قضبك يطبنات خيرين وحا أغب بدن الدمية الذنوب والمعاصي وعدم الاتصال بالله والذنوب تلدحد بالانيو فضيل بن عياض وحوليج رحمه الله إني لأعصي الله إله بانكو عاصيا فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي وحيري إلهي بانكو عاصم
markaan dembi galo waxaan dembiga ka dareemayaa aniga xayawaanka aan markaa isticmaalo een fuulo ee geela ama riti ama dibi ama wixii la midka ama faras hadda anaga booskeena gaari iyo xaaskayga dabeecadeeda oo isbedeshay ma ogtihiin reero badan waxaa dumiya macsida guryaheena ka buuxda hees baad dhegaysanaysaa maanta dhan filim xun baad daawanaysaa caawa dhan aroos la qaawan yahay baa 5 subaxnimo ka imaanaysaa maalan ninkii waxaa weeyaan mukhadiraadkii uu isticmaalaya qaadkii buu cunaya sigaarkii buu cabaya hadduu doono khamriya xashiish buu ku daraya war dunuubtan iyo macaasidani reeray dumiyaan haddana salaada laga tagay ka waran reer dhan oon salaad tukanaynin ma ogtihiin reero badan oo Soomaaliyeed oo caaw oo qayliyaya ninkii baa saa yeelay naagtii baa saa yeeshay ninkii baa saa yeelay islaanta saa yeeshay ma ogtihiin sababka koobaad inay tahay in aslanba guriga laga tukanin guriga lagama tukado cibaadada ihtimaam lagama siiyo wax alla wixii macsi oo shaytaan ana guriga waxa way si loo doona loo qasta ila isma khilaafayo lama kala tagayo lama kala fogaanayo reerka shaytaan ma soo dhaxgalayo qodobka waa qodob muhiim jiddan haddaan doonayna marka reeraheenu inay noo dhisnaadaan waa inaan guryaheena iyo lafaheennaba aan xumaanta iyo macaasida labada dhinaca macsi la galo iyo waajib laga tago labadaas u qaybsamaan waajib laga tago iyo xumaan la galo haddii aan ku dhacnana markaaba aan tawbad aan u degdegno qodob aad u badan baa ii qoran inaan idinku dheereeyeyna waan u malaynayaa laakiin aan si sariica u boobsiiyo biidn illah qodobka 11aad qodobka 12aad waa qodob muhiim ah oo reeraheena dumiya ihmaalu aljaanib alcaatifi walgharizi litaraf alaakhar sariirtii oo aan xaqi loogu talagalay aan loo wada gudanaynin xaqi loogu talagalay waxay ahayd labada qof wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala iskugu baneeyay inay xaraamta iskaga ilaaliyaan oo ay shahawaadka xalaal ku wada gutaan oo kan baahidiisu oo ka kale uu dhamaystiro hadaf bay kamid tahay sariirtu waa qayb muhiim ah nolosha sariirtu waa qayb muhiim ah wada jirka sariirtu waa qayb muhiim ah caafimaadka sariirtu waa qayb muhiim ah isku soo dhawaanshaha haddii labadii qof mid uu waayo ama sidii loogu talagalay ee baahidoodu ay ku gudan lahaayeen aynan u kala helin waxaad ogaataan reerkaasi wuu dumi wuxuu u dumi xuquuq dhan baa maqan oo la dhaho xuquuqda sariirta waana qodob muhiima weeye qodobka 13aad nacam qodobka 13aad ee reeraheena burburiya kasratu allawmi walcitaab guryaheena waxaa ka jira boolisnima guryaha yaala boolisku waa nin amar iyo canaan iyo qaylo haka awe naxariisti guryaheena maxaa u diiday ibtisaamada iyo qosolka iyo muusoodka iyo waji furfurnaanta iyo tabiicad macaanka iyo isu tanaasulka iyo wada tashiga iyo isu sabarka maxaa u diiday inaan dareenno qofka kula nool waa walaasha waa hooyada waa habaryarta qofka kula nool waa aabbaha waa adeerka waa walaalka yaa yidhi qaylada iyo buuqa iyo digdigta waa inay guryaheenu ka jiraan sidaa daraaddeed waxaabad moodaa in waardiye la iska hayo guriga aan buuq iyo qaylo ka jirin guriba ma ahaba kasratu allawm walcitaab والنقد العقيم النقد كانتاي او كانتاي او كانتاي او كانتاي ماي ادغنا سيدان باتاي سيدان ماي ارغو ساسما waxa farqi u dhaxeeya nasiixo
قفك إن وناك وشيكتو وبين النقد العقيم إن قفك إبر كدهضو إبر كدفتو وباب إسو وأتكسو قادو قف أن وحبأهين وحميه وحمتي الأضهضو أتقبل دهضو محاد تهي أدو محاد قبتها أدو تنا تهي الراجة تهي نوعا باتهي أدو قونا سيدان باتهي ورلوا قف إسقبتا وحا كبا وضا هلان نقدقاسي ونقدقه إيا عنانته إيا بهدلاده أي إسكو هيان لمانو ووحا ريره نبربوريوي ما لسد عيو ما لس أمانو واي ما أوكيالا قروح بدن لسوق الشدو ما عنتدا لسكو أمانو oo shaqada la isku amaano oo gobasha la isku amaano oo nadaafada la isku amaano oo shaqo wanaag la isku amaano oo qofka wanaag sameeyo la abaal mariyo oo kor la isu qaado oo moorka la isu dhiso oo la isu naxariisto ma la isu naxariisto oo deganaan iyo itmiinaan iyo xasilooni guriga muu ka muuqdo may lama yeelayo qaylo iyo citaab buuq iyo qaylo قضبك أفري تبنات غياب الحوار والتشاور وضع هذا البابا ماشا كم مقنبة سيدة دبا وحلا يرادو إدارة فن الخلاف وردبها دودو عسيلو قبحا سيلو وضع هذا الله فن إدارة الخلاف لبدا قفة إسخابا وحان كتلنا يا عاوة انت يدقيسانيس انت يدقيسان دون تبا إن لبدا قفة إسقبتا أي سوقاتان كورسوين لا حريرة قابك هدو خلاف دع الله حليو فن إدارة الخلاف إيا ليلة هذا فن إدارة الخلاف هداي كارثة دعضو أو أي نب دعضاي معنى هذا إلا كلا تجي معها وإلا وضع الله قرآن كما يقول حوار كالله قرآنكم ما يقع أيو حوار كنو شرحي التشاور وإلا ولا التشظه قضبك وقضب مهيمة حوار مقنعة وإلا هلا قضبك أنا وقضبك شنية طبنات قضبك اللي حي طبنات عدم التنازل وأيضا ليس التنازل قف والباء مركودك ونقض مركودك يان لغا أتكانين يان لغا رينين يان لغا دوت بدينين يان لغا عي بدينين يان هوس لغو ديغين إس أتكي هيا أبنا إس أتكي هيا محاكا دانا يالله إس أتكيس إنا ليسو التنازلين أو ليسو الصبرين عجيب واي هذا واحد نتسالين بلن بان كبحين لهين وقتك لا لغا تميا قضبك اللي حي طبنات وكا قضبك تضوي طبنات عدم التأني دقنان الآن عدم التأني دقنان الآن غير كيف ما دقنبه وحي ردو دعو وهاتا قوادي يفر وحي ردو دعو نينكي وحوليه قوادي هاي وحن باتاي وابكو خساري وابكو خساري التأني إيا دقنان واني قادو كورني لي نين باي حاسكي سكوتي يفر آد باي وعري سنين ورقد بو سوقا من فلان من فلان وحويري وحان مخراتي إلهي قلينا يا إنان كو جعله قف دمرهم كو دور سنة ينئون سجرين ورقد انتو الله الله بوسي إلا فري مودي أخيرا مركز دم محي أغاتي هدا إنا الله فرين يان لدقدقين أو دمر كونا دقدقة تشوشية رقونا دقدقة تشوشية وردقدقة هلا دايو تأنقوا وحمهيمة وقضبك لحي طبنات قضبك سديدية تضوية تبنادوي قضبك سديدية تبناد الضرب والقهر قعنقات خير بدن وحاد دمية قعنقات حقيت شو المركز قعنقات يعني ياكو يلي والله سوق قعنقات حقيتكو أرت النبي صلى الله عليه وسلم مركو أيضا في السيرة يضربهن ضربا غير مبرح ووحا ليك كينين لفنا جبينين محو يا وحا علماء بركي أقول تفسير مثلا عمامة في هذا بيدهن ووحا وحبا أهين ووحا وحبا أهين إلا يسدلو نبي يقول حيري كوا دمر كدلا أخيار معها ليسوا هؤلاء ليسوا بأخياركم
dumar ragga dilo gacanqaadka yaqaanana waanu aragnay marka gacanqaadka la wareero badan baa ku dumay ka qodobka 18 qodobka 19 التهديد وحلو يقانا حاجة تشغلين حاجة نينك وانكو فوري اما حاجة قبضة افر قضب كاللباتانات ديكتاتورية الرجل امركو تاقلين تنينك ايه نحارس الان تنينك ايوه عناد المرأة ايه مدحضيق الدمرك قضب كاس هوستا كحريقة ريرهنا وحا بربرية ديكتاتورية الرجل نينكي اورايا انا نينأه والوغيا ياكو واهيستاني نيما دادا عندكو واهيستو لكن ياكو يري نين ان حريسانين حاجاتكو ارت سو نبي محمد كوما دينيس عليه الصلاة والسلام دمرك وحي على ان حريس لآن والدمرك قلنا حريستا إلهي بأيدينا حريساني ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نحريستا أنا نينا ورحمة ريس نينا عندكم باهيستو إيا مدح عليك دمركنا وحبا من مغليان مدح حوضوا نجح دمر إن بدنوا كميدا النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها هواني ذا دي شنطة وقتي تكتو بيش رمضان أي صونتو حبن كذا ترى كان الزنا ذا كإلاليسو نين كذا أي أطيعه لما حدا كذا الأجي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكيلها هدي وناق لص مايو إن بدن وحيل هذا قرمان وناق أركي وما حدا كمت كفران النعم مركز ديكتاتورية الرجل وعناد المرأة مدح أذيقة دمرك إيا أمركو تاغلين ترقى قضبك وقضبك لباتا قضبك إلى تناد التحقير وقتل الشخصية قفك كالبهدلة أو هوس قدقة أو وحان كسوق هذا قف أو وحباهين كسوق هذا قضبك إلى تناد الحروب ثم الهجرة قحوتي نمذا وحريرها بربرية قحوتي نما وحلي هذا إن هذا ودن لآنت أو أد سوق حلي قف سوق حيو صوبا بأي ما بتشري كربا صدرت الحروب ثم الهجرة وقضبك كويلاتنات قضبك اللبيلاتنات الخلافات والنزاعات المستمرة ريرها مرنك تشوك تدأ إيبا الشقضة أبا دال مرمن وحاويا ما بالسعونيو وإلا مرماه قضبك وقضبك الليلاتنات قضبك اللباتري صدحات الزواج غير ناضج يعني وبس جورك أصغون للي يرضوا أين بسلانين أين مسؤولية فهمين جورك إسجور سنة يانا بربر كاسبا كدعي واللباتن إيا صدح لباتن إيا أفر زواج المصلحة جورك لو يقال جورك مصلحة جورك مصلحة جورك لو يقال نبى رمضان سوق لي بركاسون وني رمضان بسوق لي ماذا شو يكره بالإسلام حق مدبر رمضان حقولي شيخو إسلام سديد عرورة له لعق بدن بيقاطع صدح بلوتك شيخو تاسع ربطها الإيرادي وزواج المصلحة ما يبقى صبور بيوضعته ويدو في ليسا وزواج المصلحة زواج كجور كالنوع عن المصلحة أما أي قبضوا أيضا مصلحة كوكش إن بدن أو كمدا ريركا وبربوريا زواج الشهوة جورك عن مسؤولية كل سنين الشهوة ده يعني شهوة درادة اللي يسوق جورسدو جورك أنا وادوما يا واسكو قضب إيه الزواج كلا إلى الزواج كدول دولك وذات بعملك قبركو جورسن موفريا متكلو جورسيا متكلا جورسيا متكلو فريا والزواج أنا لو من زواج كدول دولك لها قضبك لباتن إيه الشنات وزواج لغو قصب قفك ولا قصب يا قفك كمان نين بيجورسن ولا الكائنات كنتون نينكو كنت بالولي أما أيدي بامنين أي ربي لغو قصب يا أما ويل ولا الكذا ولا دي قصب كو كان غير كذا وكبر بريا
qodobka kale iga tiradii idinka xisaaban doona ashukuuku bayna azawjayn labadii qof oo mar walba shaki uu ka dhaxeeyo qodobka kale cadamu qiyaam almas-uuliya ayadoon mas-uuliyaddii ilaahay ugu talagalay reerkaba uusan la imaanin aad bay u fara badan yihiin runtii qodobada aan isleeyahay waa reeraha way burburiyaan laakiin intaa ka badan hal xisad weeye 45 daqiiqo waa hal xiso macallin inta uu hadli karaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu reeraheena noo xifdiyo noona ilaaliyo codsigii aan hadaa idinka codsadayna waa maxay qof walba meesha u daran ee reerkiisa xanuunka ka haysata inuu si gooniya u daaweeyo ayada iyo zawjkeedana intay cajaladan qaataan ay isla fiirsadaan biidnillahi tabaaraka wa tacaala ay tadbiiqiyaan wajazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته